Assalaamu calaykum. Dunida oo ku socota xaalad dharka u saaran qarax kale. Dunida maanta ma ahan mid deggan. Hoos ayay ka qarxaysaa. Qorno waxay isu ekaysiinaysaa nabad. Hub cusub oo qarsoon. Sirdoonno isku dhacaya. Awoodihii dunida oo isku diyaarinaya. Dagaal aan caadi ahayn. Waxaa muuqata in aan ka fogayn qarax caalami ah oo u dhigma ama ka daran dagaaladii hore ee dunida gilgilay. Su'aashu waa, dagaalka saddexaad goormee ayuu bilaaban karaa? Anigu waa Maajid. Halkaad nagala socotana waa fahamka. Aan horay u galno mowduuceena. Meelaha dunida ugu halista badan. Halkee ayuu dagaalka saddexaad ka bilaaban karaa? Waa su'aal. Haddii aan dib u milicsano taariikhda, dagaal kasta oo weyn wuxuu ka dhashay meel ay xiisadu ka sara martay xadka caqliga. Dagaalkii koowaad, haddii aan isbaagiisa la fiirino, wuxuu ka bilowday dilkii Archduke Franz Ferdinand ee Yugoslavia. Dagaalkii labaad, wuxuu ka bilowday weerarkii Naaziga ee Poland. Maanta waxaa jira dhowr meelood oo dunida ka mid ah oo u muuqata inay buuxiyeen shuruudaha dagaal weyn, sida hub ururinta, is-abaabul ciidan, iyo isqabqabsi siyaasadeed oo qarka u saaran qaraxa. Meelaha ugu badan ee dagaalka saddexaad ka qarxi karo: Bariga Dhexe, Iiraan, Israa'iil. Khilaafka Khaliijka waa gobolka ay xiisada ugu weyn ka jirta. Iiraan waxay si degdeg ah u horumarinaysaa barnaamijkeedii nuclear, halka Israa'iil ay si cad u sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin Iiraan oo hubkaas hesha. Taasina waa habadkicin suurtagal ah. Sidoo kale waxaa ka mid ah badda Taiwan, Shiinaha, Taiwan, Maraykanka. Shiinuhu wuxuu ku andacoonayaa in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulkiisa, halka Taiwan ay sheeganayso madax bannaani. Maraykanku wuxuu ballanqaaday inuu difaaci doono Taiwan haddii la weeraro. Hal fursad oo khalad ah ayaa ka dhigi karta dagaal badda ka qarxa oo caalami ah. Meelaha dunida ugu halista badan sidoo kale waxaa ka mid ah Bariga Yurub, Ukraine, Russia, NATO. Inkastoo dagaalka Ukraine uu hadda socdo, waxaa jirta cabsi weyn oo ah inuu sii ballaarto, gaar ahaan haddii NATO si buuxda ugu lug yeelato. Hal rasaas oo xuduud ka gudubta waxay kicin kartaa falcelin aan la celin karin. Sababaha dhabta ah ee ka dambeeya xiisadaha ma dhaqaale, siyaasad, ama awood adduun. Dagaal weyn mar walba kama dhasho keliya hanaag siyaasadeed. Badanaa wuxuu salka ku hayaa dano dhaqaale, dagaal awoodeed, iyo loolan lagu xakameeyo mustaqbalka dunida. Haddii aan eegno xiisadaha maanta, waxaa muuqata in saddex arrimood ay yihiin kuwa ugu waaweyn ee kor u qaadaya khatarta dagaalka saddexaad. 1. Dhaqaalaha caalamka oo daciifay. Sicir barar, qiimaha tamarta oo cirka isku shareeray, iyo quwado doonaya inay gacanta ku dhigaan kheyraadka dabiiciga ah, gaar ahaan shidaalka iyo gaaska. Shiinaha, Maraykanka, iyo Ruushka waxay ku jiraan tartan lagu xakameynayo suuqyada caalamka. Taariikh ahaan, dhaqaale burbursan ayaa marar badan sabab u noqday dagaal weyn si loo abuuro nidaam cusub. 2. Loolanka awoodaha caalamka. Qarnigii 20aad, Maraykanka iyo Midoogii Sofiyeed ayaa isku dhacayay dagaalkii gaboobaa. Maanta muuqaalka cusub ee dagaalka gabow waxaa ka soo muuqda Shiinaha, Ruushka, iyo xulafadooda oo doonaya inay jabiyaan nidaamka hal quwad keliya hogaamiso. Tani waxay abuurtay xaalad ah cid walba hubkeeda ha keensato, taas oo ka dhigaysa khatar kasta mid si degdeg ah u faafto. 3. Sirdoonka iyo tiknoolajiyada militariga. Horumarka hubka nukliyeerka, gantaalada supersoniga, iyo AI-ga loo adeegsanayo dagaalka ayaa keentay in hal qalad uu noqdo musiibo caalami ah. Tiknoolajiyada cusub waxay yareyn kartaa
waqtiga looga jawaabayo weerar, taas oo macnaheedu yahay in madaxda militarigu ay go'aan qaataan daqiiqado gudahood halkii ay maalmo ama saacado ka fikiri lahaayeen. Meelaha ugu khatarta badan ee dagaalka caalamiga ah ka bilaaban karo. Haddii aad rabto inaad ogaato halka uu ka bilaaban karo dagaal weyn, eeg meelaha ay xiisadaha siyaasadeed iyo militariga ka jiraan maanta. Meelahan waxaa ka buuxa xasarad, hubur iyo quwado isku eegaya indho cad. Meesha ugu horreysa ee la filan karo inuu dagaal caalami ah ka qarxo bariga Yurub, Ukraine iyo xadka NATO. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine ma ahan oo keliya muran xuduudeed, waa dagaal awoodaha caalamka isku hayaan. NATO waxay ku jirtaa difaac buuxa. Ruushka wuxuu doonayaa inuu muujiyo inuusan ka laabin doonin hadafkiisa. Haddii NATO si toos ah ula dagaalanto Ruushka, waxaa suurtagal ah in dagaal nukliyeer ah uu bilaabmo saacado gudahood. Meesha labaad ee la filan karo inuu dagaal caalami ah ka qarxo badda koonfureed ee Shiinaha. Shiinaha wuxuu doonayaa inuu gacanta ku dhigo jasiirad ay ku muransan yihiin dalal badan oo ku taala badda koonfureed. Maraykanka iyo xulafadiisa waxay halkaas ku hayaan maraakiib dagaal si ay uga hortagaan. Hal rasaas oo keliya ayaa ka dhigi karta goobtaas mid ku fida Aasiya oo dhan. Meesha saddexaad ee la filan karo bariga dhexe, Iiraan, Israa'iil iyo khilaafka hubka nukliyeerka. Bariga dhexe weli waa meel xasaasi ah oo ololkiisa siyaasadeed uu mar walba diyaar u yahay inuu kaco. Iiraan waxay horumarinaysaa barnaamijkeedii nukliyeer. Israa'iilna waxay sheegtay inaysan aqbali doonin arrintaas. Weerar Israa'iil ka dhan ah Iiraan ama ka soo horjeeda wuxuu dabshidi karaa dagaalka gudba gobolka oo dhan. Meesha ugu dambeysa ee la filan karo inuu dagaal caalami ah ka qarxo xadka waqooyiga iyo koonfurta Kuuriya. Kuuriyada waqooyi waxay tijaabinaysaa gantaalo cusub. Koonfurta Kuuriya iyo Maraykankuna waxay sameynayaan tababar militari oo joogto ah. Xiisadahan waxay halis uga jiraan inay isu beddelaan dagaal ballaaran oo Aasiya ka bilaabma. Fiiro gaar ah, haddii dagaalka saddexaad uu bilaabmo, sidee ayuu u ekaan doonaa? Haddii dagaalkan uu qarxo, ma noqon doono mid la mid ah kuwii hore. Ma jiri doonto khad difaac oo cad ama goob dagaal keliya. Halkii laga arki lahaa ciidamo is-horfadhiya, dagaalka wuxuu ka dhici doonaa meel kasta oo dunida ah: dhulka, cirka, badda iyo xitaa internetka. Hubka nukliyeerka iyo cabsida qaraxa caalami ah. Dalal badan ayaa haysta kumanaan madaxyo oo nukliyeer ah. Qaar ka mid ahna waxay awoodaan inay ku garaacaan bartilmaameed kasta oo adduunka ku yaala daqiiqado gudahood. Hal gantaal oo nukliyeer ah oo lagu tuuro magaalo weyn wuxuu noqon karaa bilowga silsilad qaraxyo badan oo isla markiiba dunida oo dhan ku dhufata. Dagaalka internetka. Waxaa suurtagal ah in dagaalkan cusub uusan u ekaan doonin rasaas iyo qaraxyo keliya. Dalalka awoodaha leh waxay burburin karaan nidaamyada bangiyada, korontada, isgaarsiinta iyo adeegyada caafimaadka ee dalalka iyagoo adeegsanaya weerar internetka ah. Tani waxay dadka ka dhigi kartaa kuwo guryo ku xiran oo aan helin adeegyo aasaasi ah. Dagaalka badda iyo xakamaynta marinada ganacsiga. Badda waxay noqon doontaa goob muhiim ah oo lagu dagaalamo, gaar ahaan meelaha sida marinka Hormuz, badda koonfureed ee Shiinaha, iyo marin badeedka muhiimka ah ee Atlantic iyo Pacific. Cidda xakamaysata badda waxay xakamayn doontaa dhaqaalaha caalamka. Saamaynta dadka rayidka ah. Dagaalka saddexaad wuxuu noqon doonaa mid aan cidna ka badbaadin. Magaalooyinka waa la burburin doonaa,
malaayiin qof waxay noqon doonaan barakacyaal. Cuntada, biyaha iyo daawooyinka ayaa noqon doona dahabka ugu qiimaha badan. Ugu dambayn, dunida oo qarka u saaran qarax kale. Dagaalka saddexaad ee adduunka ma ahan sheeko ka dhacaysa filim oo keliya, waa cabsi dhab ah oo ku dhex jirta siyaasadda caalamka maanta. Waxaa jira cadaadis joogto ah oo ka imaanaya awoodaha waaweyn, waxaana jira khalad keliya oo sababi kara in dunida ay gasho qas iyo burbur aan la soo koobi karin. Taariikhdu waxayna baraysaa in marka ay dowladuhu ku ordaan tartanka hubka iyo awoodda, nabadda ay noqoto mid jilicsan halka dagaalku uu noqdo mid soo dhow. Haddii aan la helin wadahadal dhab ah iyo tanaasul, dunidu waxay halis uga jirtaa inay dib ugu noqoto xilli madow oo aan idna ka badbaadin. Su'aasha kaliya inoo hartay: ma heli doonaan xikmad ku filan oo ay ku joojiyaan dagaal aan weligeena arag? Mise taariikhda ayaa mar kale ku celin doonta cashar aan weli la baran? Haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar.